Soomaalida Canada ayaa lagu dilay gobolka Alberta ee dalkaasi. Wiilkan oo toogasho lagu dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Mustafa Faarax Mataan oo 28 jira. Waxaana la sheegay in qof aan ilaa hadda la xaqiijin uu rasaas kaga soo riday albaabka gurigii uu deganaa, sidaasina uu qofkii dilka geystay ku baxsaday. inanka la dilay waxaa la dhahaa Mustafa Faarax Mataan, waa 28 jir da'diisu. waxa uu ku dhashay waddanka Sacuudi Arabiya, Canadana wuxuu soo galay 1991 sida uu xaqiijiyay walaalkii Axmed Faarax Mataan oo isla halkan nuqulaloon kala shaqeeya guri ama apartment waxa loo yaqaano noo dhow oo wax yar noo jira ayuu ka dhacay. gurigaas waxaa deganaa dhalinyaro deganeed. magaaladan aan deganay horta waa magaalada Fort Macleod gobolka Alberta, magaalada meeshan oilka laga shaqeysto ugu biisan Canada weyn. marka dhalinyaradu waxay u degayiin kooxo badan bay u degayiin ama dadkuba sidoodaba. marka waxa dhacday waxaan waraystay oo ii waramay inamadii la deganaa. waan gartay marka goorma habeenimo dhacay shilku mise aroor goorma la dilay wiilka? waxa la dilay habeenimo 12 habeenimo ayaa la dilay. marka ma guriga lagu dhex dilay mise banaanka? waxa lagu dhex dilay sida ay sheegeen inamadii la deganaa ay wada deganaan. waxay ii sheegeen in guriga qof uu ku soo garaacay, isla markaasna ninkan oo madbaqa wax ku cunto ku karsanay marxuumka la dilay oo ahaa qofkii ugu dhawaa uu yidhi ana albaabka furaya. marka uu sidii albaabkii furay soo albaabkiiba furin ayaa laba xabadood looga soo dhex geliyay. guriga waan booqday, labadii xabadood way ka dhex baxeen. labada xabadood baa marxuumka midna wadnaha kaga dhacday midna madaxa, saasuu ku naf waayey. booliska la wareegay oo maxay tahay iyaguna haystay habeen iyo maalin meydka oo baaritaan sameynayay. baaritaanadii booliska madaxdooda markaan wareysana waxay noo sheegeen inay maxay tahay dil laga shakisan yahay unbay ku sheegeen, suspicious death ama dil laga shakisan yahay waxa Soomaaliya lagu dhahdo ayay ku gaabsadeen. waxaanay sheegeen in baaritaanada ilaa hadda wadaan oo aanay ka hor dhacaynin ilaa iyo inta ay natiijo rasmiya helayaan. waan gartay marka maxaa looga shakisan yahay haddii aad tuhuniyo waxa aad ka maqashay Soomaalida ama dadkii la deganaa ama waxa jira cid ay istagaalsanaayeen wiilasha guriga deganaa? sida tuhunada ugu badan ee ilaa hadda la qabo waxa ay sheegayaan in ninkani uu ahaa nin wadaad oo xagga masaajidka dadka tuhunada ugu badan ee la hadal haya marka Soomaalida iyo dadka magaalada la shakista ay sheegeen iguna soo koob. waan gartay marka sidaynu ka warhayno Cabdi Qani waqooyiga America inta badan waxa la isku laayaa kooxo ama Soomaali ku jirto iyo dad kale, sidoo kale arrimaha daraagiska iyo dadka mukhaadaraadka lugta kule ayaa iyagana inta badan rabshado noocan ah ku dhacaan. wiilkan arrimaha shaqo ma ku lahaa isagu wax shaqo oo ku lahaa ma jirto, sida familigiisa iyo dadkii magaalada deganaa iyo dadkii yaqaanaba ay sheegeen wax links oo haba yaraatay horaan yaraantiisii ilaa hadda ku lahaa ma jirto la xaqiijiyay. laakiinse dhalinyaro isla guryahani degan oo hadda maxay tahay qaarkood baxsad ku maqan yihiin ayaa la leeyahay kuwaas israadsanayo isaga waa lagu khaldamay oo albaab khaldan baa la galay baa la leeyahay sida ay sheegeen. waan gartay marka qof arkay ma jira markii ninku xabadda lagu soo riday qofkii xabadda soo riday cid arkaysa ilaa hadda ma jirtaa? ilaa hadda cid arkaysay ama sheegtay inay arkaysay ma jirto. badankiisu dadkii guryaha deganaa qaarkood way soo baxeen qaarkoodna may soo bixin. cid wax aragtayna markiina booliska yimi cid wax aragtay boolisku dadkiiba wareystay ilaa haddana cid wax rasmiya sheegta ma jirto. badanaana waxaaba dhacda imika sahray weliba siiba dadkeena Soomaalida inay kiisaska noocan oo kale aanay ku dhiirinay qariyaan xataa hadday arkayaan oo adag tahay si ugu dhiiradaan inay wax sheegaan. marka meesha ma Soomaali baa degan ereyada wiilka guriga ay deganaayeen? Soomaali iyo dadka kale ee wadankan u dhashay iyo dhamaan dad kala duwan baa degan apartmentkaas. waan gartay marka wiilka adigu ma aragtay Cabdi Qani oo ka hor intaanu dhiman? wiilkaas waan arkay. wiilkaas maxay tahay waxaan kulanay muddo hadda laga joogo week laga joogaan kulanay oo aan magaranaysaa meelahan kafeega laga cabay Soomaalida ku kulanay wiil dhalinyaro oo da-yar oo wax soo bartay oo jaamacad la shaqeyn soo dhamiyay oo shaqo taga ayuu ahaa. marka wuxuu soo shaqo tagay meelahan shidaalka ee laga soo saaro ee gobolkan aad degan tahay? halkaas uu soo shaqo tagay oo walaalkii oo uga soo horeeyay oo si muddo ka shaqeynayay buu u yimi. reerkoodu ma halkay degan yihiin qoyskiisa isaga? isla Canada degan laakiin caasimada oo magaalada Ottawa gobolka Ontario degan oo aad looga fog ilaa 8 saacadood yarad loo jirtay ay degan. dilku wuu ku soo noqnoqdaa dalka Canada qiyaastii sanadkan imika aynu galay ilaa sanadkii hore ee dhamaaday 2014 dadka Soomaalida ah ee lagu laayay Canada ma garan kartaa Cabdi Qani?
ilaa hadda inta aniga la carrabaabay ilaa 5 qof ayaa lagu dilay dalka Canada waa bishii December ilaa hadda waa muddo 3 bilood ka yar ama 2 bilood baan idhaahday 2 bilood iyo badh waa wuxuu noqonayaa qofkii shanaad ee weliba dhalinyaro ah ee lagu dilo wadanka Canada ayuu noqonayaa inta aan ka warqabo kiisaskii hore ee dilalka ahaa ee Soomaalida loo geystay ilaa hadda wax ka soo baxay oo natiijo ah baaritaankoodii runtii waxaad moodaa booliska ama wadanka booliskiisu inay dadaal sameeyaan marka hore hase yeeshee marka dambe kiiskii la iska ilaawo tacsidii dhamaato waxaad moodaa inaan halkiiba laga daba qaadan oo wax cad meel la saaraa aanay jirin sida kiisaska kale aadka loogu daba ordo aan loogu daba ordin taasna waxay ku macneeyaanay sheegaan marka booliska la weydiiyay Soomaalidu iyagu baa isleeyahay hadhowna iska qaray